السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يالكسو دوادا جلالكا فندوح ميديا فضلا داود هداد نقو عصب تاي سبسكراب سار جنبالر كنفرو لايك شير كومنتيغان هاي لوبين ايان كل ياهي كسو دوادا موقع عصب سيداد ودا اوكتين مالمي قدام بي براها بلشدا غارهان برتا يوتيوب كا waxaa la isla dhaxmariyay arooska labada fanaan ee kala Maxamed Saciid Bikey iyo fanaanada codka macaan ee Ugbaad Aragsan. arooskaas ayaa waxaa la sheegayaa in maalmaha soo socda uu ka dhici doono magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. jacaylka u dhaxeeya labada fanaan ee Maxamed Saciid Bikey iyo Ugbaad Aragsan ayaa mid soo jiitamayay maalmihii ugu dambeeyay gaar ahaan bilihii ugu dambeeyay. fanaanada Ugbaad Aragsan ayaa waxay hore uga soo ciyaari jirtay ama ay hore ugu dhixi jirtay fanaanka lagu magacaabo Qamar Suugaani inkastoo khilaaf soo kala dhaxgalay labadaasi fanaan ay sababto ugu dambeyn inay kala tagaan. Qamar Suugaani ayaa bila kadib furiinkiisa Ugbaad Aragsan waxa uu aroosay gabar ka timid dalka Ingiriiska haysatana dhalashada dalkaas Ingiriiska. aroos waaliya ayuu waxa uu dhigay Qamar Suugaani xaaskiisa cusub magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland. Ugbaad Aragsan oo la sheegay ka carootay arooska Qamar Suugaani ayaa waxaa la sheegay in xiriir jacayl oo waali ah ay la sameysay fanaanka da'da weyn ee Maxamed Saciid Bikey oo ah kamid ah fanaaniinta ugu da'da weyn ee kamid ah xidigaha geeska ee aan weli guursan ee ku sugan magaalada Hargeysa. Maxamed Saciid Bikey ayaa waxaa la sheegay in dhanka qarashaadka uu ka taageerayo madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo la sheegay in fanaankaasi ay yihiin mid aad ay isugu dhow yihiin. Muuse Biixi qarashaadka arooska Maxamed Bikey uu ku bixinayo ayaa waxaa la sheegay in cadada lacagtaasi qarashka ku baxay arooskaasi ay tahay mid aad u badan inkastoo aynu isku daynay inaynu helno xaddiga lacageed ee Muuse Biixi uu ku bixin doono arooska Maxamed Saciid Bikey iyo Ugbaad Aragsan. Ugbaad Aragsan ayaa waxaa la sheegay in ay aad ugu faraxsan tahay xiriirka jacayl ee kala dhaxeeya Maxamed Bikey iyadoo la filayo in maalmaha soo socda aroos waali ah looga tumo Hargeysa halkaas oo iga soo qayb gali doona dhammaan fanaaniinta xidigaha geeska ee ku sugan Hargeysa iyo fanaaniin kale oo lagu casuumi doono kuwaas oo ku sugan dhulka Soomaalida ay degto sida Muqdisho, Jigjiga, Kismaayo, Baydhabo iyo sidoo kale dalka Djibouti ee aynu walaalaha nahay. haddaba waxaynu ka war sugno waa sida uu dhacay arooska Maxamed Saciid Bikey iyo fanaanada Ugbaad Aragsan. daawade waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkeena ha iloobin inaad subscribe saarto.